wiilkan lagu magacaabo Teddy dharkiisa had iyo jeer way wasakhaysan yihiin uskag ayaa ka muuqda qoontiisa waxbarasho aad ayay hooseysaa had iyo jeerna isaga ayaa isku maqan uu fikiraya wiilkii macallimadiisa iskuulka xukunkan ay wiilka dusha ka saartay ay u aragto wiil aad u leeyta oo aragtida ka dhaxashay muddadii ay wax u dhageysay sababtoo ah had iyo jeer lama ciyaaro ardayda muuqaalkiisa guudna oo mid aad u leeyta had iyo jeerna suuliga ayuu u cararaa murugada ka muuqata awgeed ayay macallimadiisa ku raaxaysataa marka ay buuggiisa iyo waraaqadiisa imtixaanka ay saxayso qalinka cas ayay la macaansataa oo ay u badisaa waxayna ugu qortaa wuu dhacay warqad kasta xaaladda wiilkan ka sugan yahay markay aragtay ayay maalintii dambe waxay codsatay faylashii iyo warbixinihii laga qori jiray sanadadii hore waxayna gudagashay in ay ka soo bilowdo sanadkii uu ku jiray fasalka koowaad iyadoo akhrinaysa ayaa waxay la kulantay arrin ay u qaadan weyday macalinkiisii fasalkii koowaad wuxuu ku soo qoray Teddy waa wiil aad iyo aad u dadaala waa wiil caqli badan dibana ilaahay siiyey shaqada loo dirana si wanaagsan u qaba oo casharadiisa si wanaagsan u habeeya macallinkii fasalka labaad ayaa isaguna waxa uu ku qoray warbixin oranaysa Teddy waa wiil wanaagsan oo ay jecel yihiin asxaabtiisa hase yeeshee werwer iyo wiilbahaar ayaa ku soo kordhay kadib markii hooyadii cudurka kansar macalinkiisii fasalka saddexaad ayaa isaguna waxa uu ku qoray Teddy geeridii hooyadii ku timid waxay u taabatay si aad u adag u dadaalay laakiin aabihii ma ahayn mid daryeela wiilka oo ihtimaam siiya xaaladda gurigoodana raad weyn ayay ku yeelan doontaa haddaan arrintaas wax looga qaban si degdega macallinkii fasalka afraad ayaa isaguna ku qoray Teddy wiil isku maqan oo aad u fikiraya wax niyad ahna uma hayo waxbarashada saaxiibo ula sheekaystana kuma le fasalka xilliga casharada lagu guda jirana wuu seexdaa markay warbixinihii macallimada la marayaan ayay ogaatay oo garowsatay dhibaatada jirta waxayna dareentay in ay ku xadgudubtay wiilka wayna isku khajishay xaalka macallimadu waxa uu ka darnaa markii ay ardaydii hadiyado waraaqo qurux badan ku jirta ay u keeneen markii laga reebo wiilka Teddy oo isagu ku soo duuduubay waraaqaha caadiga ah ee dukaamadu ay dadka cuntada iyo raashinka waxa u soo laabaan hadiyadii arrintaasi macallimada raad ayay ku reebtay ardaydina waxay bilaabeen inay ku qoslaan Teddy iyo hadiyadiisa farshaxan hadiyada Teddy siday waxay ahayd silsilad yar oo qoorta la sudho iyo qoraarad yar ama dhalo yar oo cadar ah laakiin kala badan oo aan buuxin si lama filaana ayay ardaydii qosolkii u joojiyeen markii ay arkeen macallimadii oo hadiyadii ka gudoontay Teddy isla markaana ay u sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay si diiranna ugu mahad celisay way xidhatay silsiladii yareyd markiiba cadarkiina way isku shutay ama ay isku buufisay wixii maalintaas ka dambeeyey Teddy markuu iskuulka laga soo baxo gurigooda uma tagi jirin wuxuu sugi jiray intay macallimada soo baxayso maalintii dambe ayaa uu ku yidhi waxaan maanta kaa orinayaa hooyaday oo aan kaa dareemaya markii uu intaas ku yidhi ay macallimadii oohin indhaheyda ka soo daaratay waayo Teddy waxa uu u sheegay macallimadii in cadarkii kala badhka ahaa ee uu hadiyadda ugu keenay in ay hooyadii isku shubi jirtay meelna u dhigtay oo uu ku ilaashan jiray sidaas daraaddeedna markii ay macallimadiisii isku shubtay uu u soo xasuustay urtii iyo cadarkii hooyadii intaas wixii ka dambeeyey macallimadii waxay guda gashay in ay daryeesho Teddyna wuxuu bilaabay inuu dadaalkiisii dib u soo celiyo murugadii iyo walbahaarkiina uu ka yaraado sanad dugsiyeedkiisii markuu dhammaaday Teddy wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu darajada sarreysay Teddy sanad dugsiyeedkii markuu dhammaaday wuxuu u qoray macallimadiisii warqad uu ugu mahad celinayo uguna sheegayo in ay tahay macallimadii ugu wanaagsanayd ee abid soo martay intii waxbarashada ku jiray waxayna macallimadiisii ugu jawaabtay warqad kale oo ay ugu mahad celinayso waxayna ugu qortay waxaad ii bartay sidaan u noqon lahaa macallimad wanaagsan oo daryeesha ardaydeeda Teddy muu ilaawin macallimadiisii markii uu ka gudbay dugsiga sare warqad ayuu soo qoray oo ugu mahad celinayo sidii ay u garab istaagtay muddo badan kadib oo sannado ah markii ay ka soo wareegeen waxaa sanduuqa boostada gurigeeda ugu soo dhacday warqad casuumaad ah in ay ka soo qayb gasho xaflad qalin jabin ah oo lagu qabanayo jaamacadda gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxayna ugu timi casuumadda Teddy oo ay tahay xafladiisii qalin jabinta macallimadii iyada oo ku labisan hadiyadii silsilada yareed ee uu Teddy u keenay ayay ka soo qayb gashay xafladii qalin jabinta ardaygeedii Teddy wuxuu noqday dhakhtar caan ah oo ku takhasusay daaweynta cudurka sardaanka ama kansarka oo ah cudurka hooyadii ay u dhimatay Axmed Zuweyl baa wuxuu yidhi alqarbu laysu cabaaqira wanaxnu aqbiya dadkan reer galbeedka ay nagama maskax badna
وداد عاقلين ما إننا تقوم منهم هم فقط يدعمون الفاشل كلية وحتى غيران قفك قول دريستا حتى ينجح إلا ينتهي قوليسني ونحن نحارب الناجح إنه نحن لدقى لنا كقوليستا حتى يفشل إلا أنتو فشلنا نقودنا تلو إمسا أرضي أي معلم كيسو قيبك أها إنه كردي قدامي يباتا جرتي أوغيد ومركا لدوين كري لها هدي عقل لو أديكسد إمسا عرور أي حالد لسو درستي أوغيد دقان كردفتي أما هو حبرشدي يسيبك كواي ولن بالكو سعودا قف كستا أو معلم إنه دقمويش أرديدا وحرقيا إنه وريستو يباتا جرتا سيو حليو مركاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.